الرحيم waxaan rabnaa rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo in aan halkan ka soo jeedino maanta ayidaad aan rabno inaan ayidno isbedelka siyaasadeed nabadda wata ee wadanka Soomaaliya maalmihii shalay iyo maantaba ku soo biiray ku soo kordhay sida darteed waxaan rabnaa in aan akhrino qoraal aan ku ayideyno arrinkaas rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo matasha dhammaan rugaha ganacsiga dawlad goboleedyada iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed dadaalna ka geysata mar walba in la helo dawlad dhexe oo matali karta guud ahaan Soomaaliya ku dadaashay sidii canshuurta wadanka loo sahli lahaa mar walbana ka qayb gasha gargaarada kala duwan ee loo geysto dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha dagaalada iyo colaadaha annagoo og in hantida dhaqaalaha ganacsiga iyo dib u dhiska dalka ka socda ee ay maal gashadeen ganacsatada Soomaaliyeed ee isaga yimid adduunka iyo wadanka gudihiisa guud ahaan lafdhabarna u ah horumarka muuqda ee wadanka ka socda marnaba ma taageeri karno haba yaraate ee wax colaad ah iyo dagaalo dhibaatooyin u geysan kara caasimadda Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed ku urursan tahay isla markaasna abuuri kara barakac iyo qax ummadda Soomaaliyeed ee taagta daran loo geysto sidaa darteed waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno walaalayaal sanadkan ama muddo ku dhow sanad waxaa jiray khilaaf xoogan oo dhanka doorashooyinka ah una dhaxeeyay dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo musharaxiinta taasoo gaartay rajabeel ah in ay istaagaan wada hadallo dhowr ah oo ilaa markii dambe golaha sharciga oo waqtigiisu dhacay uu ansixiyay qaraar ah in loo baahan yahay 2 sano si loo diyaariyo dawlad qof iyo loo diyaariyo doorashooyin qof iyo cod ah madaxweynuhuna ansixiyay arrinkaas saxiixayna arrintaasi waxa ay abuurtay inay ka hor yimaadaan dawlad goboleedyo laba ah musharaxiinta dhammaan saaxiibada caalamka ee daneeya Soomaaliya arrintaasi waxa ay keentay dagaallo ka dhacay maalmihii la soo dhaafay magaalada taasoo dhaxmareysay ciidamada wadanka oo la kala safan laba dhinac taasoo keentay in shacabka ay ka qaxaan magaalada caasimadda ah sidaa darteed waxaan rabnaa inaan ayidno soona dhaweyno go'aanada muhiimka ah ee ay gaareen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo ilaahay hadduu ku roon yahay 3 dawlad goboleed isla markaasna ay ajiibeen soona dhaweeyeen dawlad goboleedyada oo dhan waxaan rabnaa inaan walaalaheena Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada aan ka codsano way jiri karaan waxyaalo la taban karo laakiin in inta dib loo bilaabo wada hadalkii iyo shirarkii halkaas ummadda Soomaaliyeed rajada u soo muuqatay shalay iyo maanta in la aado doorashooyinkii sidii loo fulin lahaa waxa yar ee ka dhimanna lagu saxo kulanka iyo wada hadallada waxaan taageersanahay aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in colaadda la joojiyo in ciidamada xeriyahooda lagu celiyo aad ayaan arrinkaasna u taageeraynaa in amniga ummadda Soomaaliyeed la ilaaliyo oo aan waxba loo geysan amnigooda in dib loogu noqdo wada hadaladii iyo kulamadii ummadda Soomaaliyeed u socday oo halkaas lagu saxo wixii mushkilada ee jira oo wada hadal lagu dhameeyo in la hirgeliyo heshiiskii hore ay u saxiixeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee 17 September wax alla wixii kale ee laga tabanayana wada hadal lagu dhameeyo waxa alla ka baryeena kana rajaynaynaa in kulamadaas ummadda Soomaaliyeed oo uga soo saaro xal siyaasadeed oo dejiya ismaandhaafka siyaasadeed iyo waliba mid guud oo dadka iyo dalkaba siiya nasiib ay ku yeeshaan siyaasad degan oo ku dhisan cadaalad xoojisana midnimada ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq